haween ah la wada guursado ma aha wax ku cusub dhaqanka Soomaalida laakiin waxa ugub ah in laba hablood oo gashaanti ah hal mar la wada mehersado lalana aqal galo Saxardiid Ibraahin Cawad ayaa dhawaan aroosay laba gabdhood oo kala ah Iqra Ibraahin Ahmed iyo Nimco Mahad Xasan ilaa yaraanteedii oo ku hami jiray waxaan ku leeyahay jeclaa inaan aroos ballaaran dhaco labada dumaraan mar wada arooso كبعد ما كده ونقول بوليس ما شاء الله. وادعد النادر محا سيكو كلفي بشير. لا حويا هرت مركه هره لبدا مid basi gaar ah sheegsan jiray dadkan labada way jeclaan saddex labada way jeclaan kabacdi markii dambe aan isku keenay oo isku sheegay horta aan isku keenay ma isku sheegay markaan isku sheegay ismaqli jiray baan ismaqla ayaan habeenkii dambe isku keenay Bashir waxa uu watay qorshe cad balse sidee buu ugu soo bandhigay hablaha uguna qanciyay Nimco iyo Iqra waxay u sababeeyeen inay aqbalaan guurka caynkan ah jacayl ay labadooduba u qabaan Bashir waxayna sheegeen inay iyagu doorteen aroos laba geesood ah si aysan u kala masayrin markii horeysay intaan aan ismehersan ee sheekada kortay yuri adigana oo kala sheegastay in kala noo sheegay labadiina ma wada jecel waxaan doonaynaa marigooda gurso si haddii aan idin kala horeysay macna aydan u hinaasin de waxaan ku kala deelka la kala horeysay kulli qasabta hinaasa waa imanaya tan ugu horeeyo hinaasa hadii ka tooyada horeysan waa hinaasa saata qasab u imanaya marka ku dhis marna uga dhis mar bal ka dhigay buu guri waan ku aqbalay waan ku heshinay ma sha Allah anaguna de markaan la weydiiyay mid walba tiri waan ku qanacsanahay saddexdeedu waan isqaabilnay marka sheekadu markay sida ahayd ka bacdeen wuxuu noo soo dejiyay inuu marna wada guursado ma sha Allah anaguna waan ku qanacsanay waana ka aqbalnay Bashir waxa uu ka shaqeeyaa dhismaha guryaha walow ay bulshadu aad ula yaabtay guurka Bashir haddana waxa uu rajaynayaa inuu mar kale laba dumar ah wada guursado haddii uu dhaqaale u helo balse su'aashu waxay tahay haddii uu hirgeliyo damaciisa cusub Iqra iyo Nimco ma ka masayri doonaan